arrin la yaab leh, gabadhanu waxa ay dhabarkeeda ku sidataa wadnaheedii. Salwa Xuseen oo ah gabadh British ah, nolosheedu si weyn ayay isu beddeshay kadib markii qalliin 6 saacadood qaatay lagaga sameeyay wadnaha laguna rakibay mid artificial ah, taasoo ah arrin adduunyada aad ugu yar. Waxayna meel kastoo ay tagto iyo mar kastaba dhabarka ku sidataa wadnaheedan samayska ah, taasoo ka dhigan haddii hal mar ay ka tagto in ay dhiman karto. Salwa Xuseen waa 40 jir, wadnaha ka bukootay, dabeetana ay dhakhaatiirtu ku sameeyeen qalliin qaatay 6 saacadood lagagana bedelay wadnihii looguna xidhay wadna samays ah, taasoo ku jira shandada dhabarka ay ku xambaarsan tahay oo ay mar walba sidanayso si ay u sii noolaato. Marwadan muslimadda ah ee Britishka ah waa qofkii labaad ee qalliinkan oo kale lagu sameeyo dalka Ingiriiska gudihiisa, sida ay sheegeen dhakhaatiirtu, iyada oo u nool si dabiici ah una adeegata oo u shaqaysata si caadi ah. Balse waa qof aan jirkeeda gudihiisa wadne ku jirin sida dadka kale. Waxaana uu gaadhaa culayska shandada uu ku jiro wadnaha samayska ahi miisaan 6.8 kiiloogaram, kaasoo ka kooban baytari elektaroonig ah oo tamarta kaydiya, mishiin kaga shaqaysiiya qalabkan, iyo aalad yar oo dhiigga tuurta oo riixda. Waxaana uu wadnahan samayska ahi qabtaa shaqo la mid ah shaqada uu wadnaha caadiga ahi qabto, taasoo ah inuu dhiigga riixo oo uu gaarsiiyo dhammaan xididada jidhka iyo inuu kaga shaqaysiiyo habka dhiig wareegga ee qofka. Salwa Xuseen waxay ahayd hooyo 2 carruur leh, waxaana ku dhacay inuu wadnuhu shaqada gabo. Waxaa la geeyay dhakhtarka Harvard ee galbeedka London. Kadib markii ay kasoo gudubtay qalliinkan adag, waxa ay ku laabatay gurigeedii iyada oo si buuxda markaa u caafimaad qabta. Jidhkeedina waxa uu la qabsaday wadnihii cusbaa ee artificialka ama samayska ah.